dalka Canada oo shaqaale raadinaya haddaad waxa weeye saddexda xirfadood mid uun leedahay waxa weeye meesha kuugu dhow ee Canada waxa weeye safaaradeedu ka furan tahay tag ofiisaha ka xareysto kow xirfadda koowaad qofku waa inuu yaqaano nalalka iyo mashiinada sida loo habeeyo nalalka iyo mashiinada sida loo habeeyo waa inuu yaqaano farsamada waa inuu yaqaano labo farsamada labaad qofku waa inuu yaqaano sida alwaaxyada loo sameeyo waa inuu yaqaan alwaaxyada noocyada badan baa loo sameeyaa adigu alwaaxyo kaliya ku soo kabeen ma alwaaxyada waxa weey miisaska laga sameeyaa ma alwaaxyada la hagaajinaya anu ma garanayo midda saddexaad waxay tahay qofku waa inuu yaqaanaa gelinta biyaha sida waxa weey biyaha loo galiyo tubooyinka sida biyaha loo galiyo waxa weey qofku waa inuu yaqaanaa hadaa saddexda farsamo leedahay waxa halkaan ku joojinaya geel jire ba wuxuu ka soo tuurtay arrinka luqluqa video-ga lagu soo diray wuxuu ka soo tuuray Europe meelaha uu ku nool yahay arrimahan ka jiraan dul istaga shaqadayda waa arrimaha masiiriga dadka waxay ka mid tahay TikTok waxaan la xitaagnay waana qasab inaan ka jawaabo luqluqa dhowr qof igu soo dirto ma garanaysaa arrimahan ka waran skill visa sida qolyaha korontada iyo biyo gelinta iyo ma garanaysaa qolyaha ka shaqeeya alwaaxa ama ma garanaysaa woodworker waxa loo yaqaan woodcraft ama looga ad waxyaalo badan magacyo badan bay leedahay skillka noocaas uu jira in Canada ay u baahan tahay Australia way u baahan tahay dad waa jiraan Africa hadaba kuma jirto Asia kuma jirto Asia testi bay leedahay gaar lacagtuna waa badan tahay sida hadda wadamo qahmada Asia $20,000 bixiyo waa work visa sidii rabaan Australia ku yaadaan waxa ku soo haray Africa Kenya halkaan ku soo dhigay warqada Canadian listiga ma garanaysaa wadamada skillka ay basho ma garanaysaa wadamada ay basho maahan wadamada ay aqbalin warqadaha ka yimaada waxa kamid ah Kenya iyo Soomaaliya Ethiopia warkeeda daaba ma jirtaba marka arintan noocaasa dadka Soomaalida safaaradda Canada oo la tago wax laga apply gareeyana ma jirto meel online portal gaar ah waa jira ofiisyaasha waxa laga dalbado laakiin ka safaaradda la aado oo wax lagu dhistay ma jirto safaaradda sida caadiga citizenka wadankaas ayuu u adeegtaa arrimo kala diblomaasiya ma fahamtay safaaradda oo tago ma jirto waxa ka jira taas arintan dad Soomaaliyeed oo Kenya wado ama farsamada gacanta qaybta korontada Canada iyo Australia waa isku mid Canada wali sharci gaar ah leedahay oo regulation bay leedahay wax loo yaqaan code of practice oo Canada leedahay jirto gaar ah taasna inaad baratid waa tacliin gaar ah manhaj gaar ah voltage-ka electricity-ga uu ku shaqeeyo kaleeto waa xadidan tahay material-ka waxa uu ka samaysan yahay maadada waxa ka samaysan yahay waa waxyaalo gaar ah oo sharciyo oo la barto maaha wax laga shaqeeyo ama xirfado oo dadka dibadda lagu barto waa wax ma garanaysaa standard ah Ingiriiska ayada iyo Canada iyo Mareykanka baa xogaa isku yiri walow Mareykanka ka wadwanaato xirfad Afrika koronto aad kaga timidna kaga ma shaqeyn kartid Canada iyo Blambankan waa la mid Blambanka biyo gelinta dibadaha oo Canada iyo Australia waxa soo gala gas waxa loo yaqaan license buu u baahan yahay Blambankan license gaar u leeyahay amurahaas ayaguna standard iyo waxay leeyihiin practice iyo regulation bay leeyihiin ma shaqeyso marka iska isdaalin adoo tuuba dhulka gelin jiro bisaa meel ugu soo taagi jiray license gas iyo waxyaalo badan baad u baahan tahay wax shaqeynaya maahan shaqada ma shaqeynayso bac weeye ma garanaysaa isku daalina warqadana kana ku soo dhigaya Kenya iyo Soomaaliya wax ka yimaada in la aqbalin ba work visa Africa ka yimaada Canada ma jiraba halkan waa shaqeeyo Soomaaliya iyo wadanka Australia